walaalkeen fu'aad yuusuf cali haysata. fu'aad yuusuf cali arrintiisu imika ma bilaabmin, in badan ayay socotaa arrintiisu. intaasoo dhan ay socotana waxa aan aniga oo deeqa ciise aan uga aamusnaa rajaan sugayay. rajo ayaan qabay, rajo ayaan ka sugayay madaxweynaha dalka ismaaciil cumar geeli. waxaan ka sugayay inanka arrintiisa si wanaagsan loo rido, si fiican waxa uu tabanayo iyo waxa uu sheegayo oo runa oy marbeeniyi ku jirin ina laga cafiyo, la xaalmarin loo sameeyo, la isdaba qabto. isaga ayaa maanta madaxweynuhu u ah dalka hogaamiye aabbo u dhaxeeya ummadda. waxaan halkan idinka sheegayaa ummadda reer Jabuuti sida aad u dhantihiin, rag, dumar, wiil, gabadh, yar iyo weyn. waxaan idin sheegayaa inaydaan geesi ka marnayn, ayaan idin sheegayaa. waxaan idin sheegayaa inaydaan gaari ka marnayn, ayaan idin sheegayaa. waxaan idin sheegayaa inaydaan geesi ka marnaynoo fu'aad yuusuf cali ayaa geesinimo idinku filan. aragti la arko geesi amba la dhandhamiyo waxa idinku filan fu'aad yuusuf cali. gaarina dee isku sheegi maayo, way idinka buuxdaa. idinka ayay idinka buuxdaa gaari, idinka ayaa 24 saacadood dumarka reer Jabuuti ay ka hadlayaan facebookyada oo dariiqyada socdaan iyaga iyo ubadku. waxaan la hadlayaa ummadda reer Jabuuti baan la hadlayaa. degta si fiican u fura reer Jabuutiyo. dulmiga halkaa aad ka arkaysaan 24 saacadood halkaa la idinka tusay waa wax laynagu itixaamayo, waa wax ilaahay inagu itixaamayo, waa wax maalinka qiyaamaha layna soo joojin doono, laynagu itixaami doono, layna weydiin doono. walaalkeenna ku tukanaya, kaniifka ku dhex tukanaya ee kaniifka ku dhex nool waxa aynu uga hadli weynay waa layna weydiin. ma garanayo inaad aragteen, inaad ila dareenteen inta uu fu'aad xiran yahay 2 jeer ayuu dhulku gariiray. Jabuuti 2 jeer ayuu dhulku gariiray. inaan kaliya yahay iyo inay ummaddu ila dareentay way soo sheegi doonaan. waxaana calaamado ku tusaysa ina la idinka doonayo ficil inaad samaysaan. reer Jabuuti hadal iyo waqtigii hunu loo baahnaa midtoona ma joogno. aniga oo deeqa ciise duhura waxaan halkan aan idinka leeyahay oon maxaa la yidhaahdaa idinka soo diraya fariin aad u culus oon ku doonayo beritoole jimcaha inaad ku garab joogsataan walaalkiin fu'aad yuusuf cali oo qabri looga dhigay, kiniif looga dhigay qabri, oo noloshiisa dhimashadii ku sugaya halka. geesi kama madhidin, waan idinku celinayaa. 100 fu'aad ayaa idinku jira, 200 fu'aad ayaa idinku jira. malyoonkeenuba waxaynu nahay wada fu'aad, malyoonkeenuba waxaynu wada nahay gaari, waxaynu nahay dadka aan iskala qaadqaadin baynu nahay. imika ayaa layna soo dhexgeliyaa waxa. laakiin waxaan halkan idinka sheegayaa dadka fu'aad moodaya qabiilo ku quusta, igu quusta aniga. dadka fu'aad moodaya qabiilo igu quusta aniga. xaqdarradu inay jirto Jabuuti cidna geedgoma qarsoona. waad ogtihiin habeenkii sida aad ii taageerteen, sida aad ii soo garab joogsateen, sida aad u muujiseen in aad ka xuntihiin wixii halka ka dhacay, dareen aad ila dareemayseen. nin walba waxa godkiisa ku haysta inaad habeenka halka ka daawateen ayaa idin soo dareeriyay. taasi ayaa idin kicisay. marka maantana waa daawateen fideogii uu idin soo duubay walaalkeen. nin waliba waa inay taabato, nin waliba waa inuu halka uu ku jiro walaalkeen qofka damiir kale ee reer Jabuuti uu ka murugoonaya, uu ka dhiidhiyaya walaalahayo, uu ka dhiidhiyaya. anigu waxaan goostay aniga oo hooyo ah 2 ubada leh inaan 2dayda uba 7diisa ku daro ayaan goostay. calanka aan sito waad aragtaan, waa calankeeni. dirayska sharafta leh aan sito waad aragtaan, waa dirayskeenii. waa dirayska sharaftiisii iyo karaamadii uu lahaa laga xayuubiyey weeyaan. waa dirayska uu ku ciilan yahay ninka dirayska siti weeyaan. waa dirayska uu ku ciilan yahay ninka sida ninka uu u sido maxaa la dhahaa shicibka ah
shicibku ku dulman yahay weeyaan ee loo soo diro afar sida ugu cagacagaysa marka ay hadlaan marka ay yiraahdaan waxaan doonaynaa xaqayaga waxaan doonaynaa cadaalad baan doonaynaa loogu soo diro ee lagu muquuniyo waa kani weeyaan ka kasitay uu ku dulman yahay waa kani weeyaan ka kasitay aan galon loo biirin waa kani weeyaan kasitay qabiil loo kala qaado anigu qabiil ma nihin fu'aadna qabiil maahe waa qaran ku quuso waan idin sheegay ninkii qabiil moodayo ku quuso anigu halkan waxaan korkayga reer Djibouti idinka hortiina idinka dartiina ayaan u qaaday dirayska idinka hortiinana waxaan halkan ku dhigayaa caawa dirayska ayaan caawa halkan ku dhigayaa aniga oo deeqa ciise duhura waxaan diiday dirayska sharaftiisa ana oo ixtiraamaya oo dhowraya ilaa inta ay sharaftiisa u soo noqonayso aan laalaabto oo meel dhigto ayaan go'aansaday waxaan go'aansaday ilaa inta ay shacbigu ku dulman yihiin darayskooga aan korkayga ka dajiyo ayaan go'aansaday waxaan go'aansaday inta uu ka sitay uu ku dulman yahay ayaan dhigaya ayaan dhiganaya darayskaas marka waxbayaan hadalku ila tararin reer Djibouti waxaan idinka leeyahay waa milay iyo male waa milay iyo male waa milay iyo male kaca soo baxa Britole ilaa inta aynu ka guul gaarino waynu karnaa boqol waxa inagu jirto dhalinyaro oo idikeeya oo ninkaasi uu ugu horeeyay halka jiifa ee godka lagu riday way isaga hadda maxaa la yiraahdaa maqli jirteen inuu bedeli doono generalka anigu waxaan idinka leeyahay inuu madaxweynaha bedeli doono ayaan halka ka sheegaya inuu bedeli karo uu kartideedii leeyahay ayuu noo sheegay ifuanko waxa uu na tusay faybiliteega ay leedahay securityga magaaladu isagoo uu godkiisii ku jira ayuu telefoon isku soo duubay inaanu security jirin halkaas ayuu idinka cadeeyay encore une fois inaanu wadankani dib habayn u baahan yahay ayuu halka idinka cadeeyay walaalahayo annagu waxaanu nahay hooyada maanta ayaynu nahay ubadkeena haddaynu